madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in wadankiisa uu wada hadal hordhaca uu la furay dalka Cuba xilli ay Mareykanku cadaadis dhinaca dhaqaale oo aad u xoogan ay Cuba ku hayeen maalmihii ugu dambeysay ama bilihii dhawaay oo dhan ayaa madaxweynaha Trump waxa uu sheegay in Cuba iyo iyagu wada hadal bilaabeen. Donald Trump ayaa ka digay in gabi ahaanba Cuba wada hadallada ay wax ka soo naasacada waayaan inay isku bedeli karto dhanka kale oo dhigay faray. Wuxuuna sheegay in handadaada tooska ah dowladda Mareykanku ay wado aysan ahayn mid ciyaar. Wuxuu madaxweyne Donald Trump bari ugu dambeeyay uu sheegay in awoodii Mareykanka ee muqooninta ahayd uu dunida ku soo celinayo dal kastana uu handadayo hadii ay wadamadaasi qaaday waayaan talooyinka Mareykanka ah in ay deal qaataan hadii kalena dhagay faray. Dhanka kale madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in wada hadallada ka soconaya magaalada Vienna magaalada Geneva andhaho ee dalka Switzerland ay u muuqdaan kuwo guuleysanaya isagoo sheegay in ay u muuqato in dowladda Iran ay rabto nabad. Iran waxay rabtaa heshiis wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan wada hadallada markaasi u dhaxeeya iyaga iyo Iran. waa tribalka wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda washana qiimaha badan gaanka caalamka oo dhan si kasta meel kasta gabaq la saane qodobada kale aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda waxa kamid ah dalka New Zealand ayaa arrin mucjise ah oo la yaab leh lagu arkay waxa ka kacay wadankaasi markaasi dabaylo aad iyo aad u xoogan oo inta badan daadiyay dhirtii waaweyneed ee wadankaasi ka dhisnayd si wararku xaqiijinayaan roobab aad u daran iyo markaasi dabaylo waaweyn ayaa la sheegay in ay dhibaato geysteen kumanaan kun oo qof ayaana koronto la'aan noqday ku dhawaad 30,000 oo guri ayaa waxa ay noqdeen koronto la'aan sida ay sheegayso dawladdu iyadoo jasiiradda waqooyiga ay sheegayso in dhibaatooyinka ay ugu badan ay ka dhacayaan waxa raadiyaha la yiraahdo The Radio New Zealand RNC ayaa ku tilmaamay in ay dhibaatooyin badan halkaas ka dhaceen shirkadda dhinaca bixisa korontada ee wadankaasi loo yaqaano Powerco ayaa sheegtay inay dadka ay badan ay saameyn doonto ayagoo soo kala sheegay magaalooyinka gobolka uu ka mid yahay gobolka Wellington ay dhibaatooyinka ugu sii badan yihiin iyadoo dhanka kalena ku tilmaantay in loo baahan yahay in la isku gurmado dawladda ayaa ka digtay in ay dadku aysan banaanka u bixin sidoo kale waxaa sheegay in diyaaradihii ay kala leexdeen ay xayirmeen dhibaatooyin aad u xoogan oo dhinaca dhaqaalaha wadanka soo food-saari karo daqad kasta hadii ay soo socoto hadii sii socoto dhibaatooyinkan aad iyo aad xoogan ee la yiri waxay ka dhasheen roobabka iyo daadadkaasi soconaya wadada dheer wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda dawashana qiimaha badan ee Soomaaliland ayaa iyaguna sheegay inay ku fogan yihiin soo qodista deegaan shidaal oo ku jira loo yaqaan deegaanka xood oo ka tirsan degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer sida ay wararku sheegayaan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo isagu markaasi ka hadlayay munaasabad lagu furiyay shidaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliland ka bilaabanayso qodista shidaalka wasoo hadalka u dhigay Soomaaliland ayaa hadeerto waxa ay kamid tahay ama ay ka talisaa qaybo kamid ah dhulkii waqooyiga Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Cirro ayaa sheegay in shacabka uu ugu baaqay ugu bishaarenayo in uu shidaal ka soo saarayo ayuu deegaano maadaama ay in badan isweydiinayeen goorta shidaal la helayo waxaan ugu bishaareynaya ugu dambeyn in qodista shidaalka Soomaaliya ay bilaabanayso sanadka 2026 ayuu Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegtay in xataa ay suurtagal tahay in waqtiga uu sheegay uu ka soo horumaro oo la bilaabo sanaha soo socda dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inuu arintan u yahay wadanka ugu weyn ee isagu doonayo in uu shidaalkaasi ka qodo ilaa hadeerta si madax banaan looma xaqiijin karo heshiisyadaasi waxa ku qoran maadaama inta badan heshiisyada lala galo Imaaraadka Carabta aysan hayn kuwa hufan hadhowtana sanado badan kadib dadka Soomaalida ay ogaadaan ayadoo ay xira iyo fandhaal ay kala dhaceen wararka ugu weyn ee dunida waxa kamid ah Israa'iil ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka dhiididay soona saartay digniin weyn oo ku saabsan in ay u muuqato inay jiraan qorshayaal waaweyn oo Britain ah oo ku soo socda kadib markii ay sheegeen xataa hadii xal loo helo hubka nukliyeerka wadanka Iran inay jiraan quwado kale oo gobolka ka soo mudiyay kuwaas oo doonaya samaysashada hubka nukliyeerka ama si hoosaba meel marinay sida ay u sheegay madaxa guud ee shirkadda dhinaca militariga Israa'iil u qaabilsan horumarinta gantaalaha ee Israa'iil oo leeyahay Yuval Stinitzins oo ah gudoomiyaha golaha Rafale Defense System ayaa sheegay inay tani tahay hubaal waa shirkad military oo Israa'iil leedahay taasoo soo saarta qalabka Israel Defense System ka loo yaqaan gaar ahaan tan military technology ka leeyahay oo ah tiknoolajiyada danabaysan ee militarigu ay isticmaalaan isagoo ka jeedinaya khudbad meel loogu diyaar garoobayo soo saarista iyo kor u qaadista gantaalo difaaca gali kara iyo dedejinta iyo sifaynta gantaalaha iyo rakabista kuwooda kale iyo in production-ka ama soo saarka la kordhiyo xilli la filayo inuu dagaal aad u culus u dhaco oo u dhaxeey doona kala qarxi doona sida la rajeenayo markaas Mareykanka iyo Iran
ama sidaa darteed u muuqata arrintu yacni ayaa waxay uu sheegay inay sidoo kale dhibaato aad u xoogan ay soo jiijiireedahay waxa uu yidhi keliya ka hadlina Iiraan oo laga yaabo in xal loo helo oo xalka loo heli karo ay tahay maadaama Mareykanku hadirta inay ga albaaban yahay laakiin wuxuu u weydiiyey tan ka weyn ee soo socota wargeyska Otiot Hornof ee afka Cibraha wax ku qoray ama Hibrowga ayaa yiri waa inay Israa'iil waxa waajib ka ah inay ka walwasho wax kasta isla markaana waa inaynu si dhow aynu u daawano oo lana socono dhaqdhaqaaqa gobolka bariga dhexe gaar ahaan wadamada Masar iyo Turkiga kuwaasoo ay tahay in aynu hubino ama aynu ogaano inaysan si sir ah aysan u horumarin hubka nuclearka ama u horumarinaynin taasoo uu ku tilmaamay in maalinta ay wadamadaas hubka ay gacanta ku dhigaan cidina aysan ka farmaroojin karaynin ayna noqon karto dhagay faray ma noqon karto tani wax iska sahlan isla markaana ma aha karto mid inagu hodhowto in xakameey karno waxa uu sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay la socodka qorshayaasha waaweyn waxa uu ka digay in labadan dal ay leeyihiin sirdoono aad iyo aad u adkeeyay bariye ugu dambeeyay xagaysiga iyo xogaha aadka u waaweyn Israa'iil ayaa labadan dalba ku lahay saldhigyo waaweyn oo dhinaca sirdoonka ah waxayna ahayd wadamo ay lafta iyo dhuuxa ay kala dalaacayso ka gashay hase yeeshee dalka Turkiga ayaa bilaabay 5 iyo 7 sanadood ugu dambeeyay inuu iska sifeeyo markaas sirdoonka Israa'iil halka la sheegay in dawladda Masarna waayadii ugu dambeysay oo dhan ay la dagaalamaysay sirdoon ku dhex jira iyadoo ku u arkaysay in sirdoonkeeda qayb ka mid ah goorsi horeysay la mustafeeyay ama goorsi horeysay waxoogaa sandareeraha loo qoray waxaa la sheegay in olole aad xoogan u soconayay taasina waxaa laga garanayaa hadalka ka soo yeeray sarkaalkan oo u muuqday inuu leeyahay galaangalka iyo xogihii markaas daqiiq ah iyo kuwii kale joogtada ahaa ee ayagoo ceerin mar walba aynu ka heli jirnay gudaha labadan dal way yaraadeen gabaabsi ayayna noqdeen labadan wadan ayaa dhanka kale barihii ugu dambeeyay dhan waxay wadeen isku soo dhawaansho aad u xoogan waxayna sameeyeen heshiisyo waaweyn oo tirabeer ah heshiisyadaasna waxaa kamid ah saddexgalka weyn ee aan la filaynin inuu si degdeg ah saas ugu bilowdo dhanka kalena waxa uu sheegay inay wali ay muhiim tahay in la xaqiijiyo in dhibaatada ugu weyn ee maanta iyo jiritaanka Israa'iil hortaagan ay tahay kumanaanka gantaal ee Iiraan ay haysato kuwaas oo ku tilmaamay inay yihiin gantaalaha nooca ridada dheer ballistic missiles ee ka gees dunida iska kala goosha wuxuuna sheegay in horumarinta gantaalahaas iyo qoriga dhafoorka laga hayo Israa'iil haday ugu sii darsanto tan kale inay sii darsanayso dawladda Masar ayaa si aad u xoogan uga carootay hadaladan iyo wali waxay ugu yeedhay isballaarinta Israa'iil ee ah in ay dib ay u rabto inay u qabsato dhulkii 1967 oo ay dadka ka qaato kadib markii Israa'iil ay sheegtay inay sharciyeysatay qabsashada daanta galbeed wararka ayaa xaqiijinaya dawladda Masar ay ku tilmaantay inay tani ka cadhaysiinayso isla markaana meesha ka saarayso heshiisyo badan oo aad u xoogan heshiiskii golaha amaanka qaramada midoobay ee mamnuucayay Israa'iil inay dhulkaas isku ballaariso iyo axadiga caalamiga ah ee qodobkiisa afraad Geneva Convention ee 1949 iyo resolutionkii caanka ah ee 2334 ee 2016 intaba waa la baalmaraya isla markaana waxa ay gumaysiga Israa'iil ay ku sii socdaan in adeeg aad xoogan ayaa lagu yiri war qoraal oo aad carab badan uga buuxday oo ka soo yeeray dhinaca wadankaasi Masaarida ayaa aaminsan in aragtiyada noocan oo kale ay keeni karaan oo kaliya inay iyaga ka cadhaysiyaan waxayna ku tilmaantay inay sii adkay doonto dhowr mowqif ay hore u qaadatay dawladda Masar ayaa aaminsan in hadii daanta galbeed la qaato ay ku xigto Urdun qaybo badan oo kamid ah sidoo kalena goobo waaweyn oo laga qabsaday dhul ballaaran oo Suuriya ay Israa'iil kaga habsantay oo ay isku sii ballaarinayso ilaa iyo buurta loo yaqaan Jabal Sheikh halka ay sidoo kale doonayso in Lebanon dhul ka farmaroojiso waxa ku xigana uu yahay Sinai dabadeedna ay tahay hanta xarblaada iyo qorshaha weyn ee Israa'iil fidsan in Netanyahu uu ku traabay muddo aad iyo aad u dheer hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyay oo dhan ay wadamada qaarkood ay warwareynayeen in Israa'iil aysan joogsan doonin ilaa iyo inta ay wadamada caalam carabi ka arkayso inay talaabooyin qaadayaan dhinaca kalena xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaarayay isaguna go'aanka Israa'iil ee isballaarinta halka saraakiil kala duwan oo Israa'iiliyiin ay madaxweynaha Mareykanka uga digeen in uu ku kadsoomo waxa uu ugu yeeray in uu doqomaysto Netanyahu oo ay ku tilmaameen nin aan haba yaraatee aan yuhuun iyo ballan dulmaasiyad midna lahayn Trump ayaa sheegay bari ugu dambeeyay dhan in uu daanta galbeed in la qaato uu ka soo horjeedo hase yeeshee warkaas ayaa u eg mid gabi ahaba noqday kadib markii dawladda Mareykanku ay diiday in wax la taaban karo laga qabto qadiyadaasi dhowr kooxood oo kooxda ay kamid ka tahay Peace Now oo ah dadka ka soo horjeeda deegaameysiga Israa'iiliyiinta laakiin ayagoo ah yuhuud Israa'iiliina ayaa ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka inuu joojiyo ku darsashada dhulka iyo dhulboobka aadka u foosho Netanyahu waxaanu kaaga digaynaa madaxweyne Trump in uu yahay ninka loo yaqaan Netanyahu nin khiyaanola sida daraadeedna waxa uu doonayaa in uu adigana
uu ku muujiyo oo markaasi uu kugu dul ooyo kugu dul baroorto dhinaca kalena uu sii wado waxyaalo noocaas oo kale waxay ku sheekeen warkooda qoraalka in arrimaha noocaas oo kale ay yihiin kuwa dhibaatooyin aad u xoogan oo dhinaca markaasi sharafta iyo cisada Mareykanka uu lahaa ee dhinaca matalaadda caalamka uu keeni doono dhinaca kalena Soomaaliya ayaa waxa ay gobolka ayaa wuxuu wajahaya loolan aad iyo aad u xoogan Turkiga oo xidhiidhow la leh Ethiopia ayaa sanadihii la soo dhaafay saameyn weyn raba inuu ku yeesho dalal kala duwan oo isugu jira kuwa qaaradda Afrika bariga dhexe iyo sidoo kale Yurub iyo xataa koonfur bari Asia saameynta Turkiga uu ku yeeshay dhinacyada ganacsiga maalgashiga iyo militariga adduunka oo dhan ayaa ka qayb qaadanaysa dadaalo lagu soo afjarayo colaadaha laguna helayo nabad sida ay Turkigu ay daabacaan ama ay faafiyaan dadka aad iyo aad u taageersan talabada Turkiga waxaa hogaaminaya madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda arrimaha ka taagan geeska Afrika waxay soo jiiteen indhaha dalalka reer galbeedka iyo bariga dhexe madaxweynaha Turkiga ayaa toddobaadadii la soo dhaafay oo dhan booqanayay dalal kala duwan hadeertana wuxuu qorsheynayaa inuu dalal kale muhiim ah oo isku kala bixiyo sida la sheegay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa سنينتي وصفري دل يا ربي سنينتي إنه وصفره دل كيس كنت جاي إمارات كعربت لكن هالكاسي ورك لا يكيمين نحنا الشيء إنه جابيه هذي وأرندسي وجوتشي أما وحنا صدي ثلاثة أنا وحتجي دونا إثيوبيا سوء ولا كلمة هو جامياش هذا بقى ما أنت هو جامياش كتيران كوا قارة أفريقيا هالكاسي كسوان يكو إثيوبيانك إثيوبيا وصوماليا دبع عاد حجر أولينا عباد عكره أيوه مدحونا هذا الكترك جواركا إنه قعنت ساروا عن أوليه هالك الصوماليين ودون inuu calafsado waxa la leeyahay kheyraad halkaas yaala sida ay wararku sheegayaan madaxweynaha Erdogan ayaa saxiix doona heshiisyo kala duwan inta uu booqashada ku joogo labada dalka Ethiopia si isla markaana waxay ka wada hadli doonaan arrimo guud iyo kuwa goboleed iyo kuwa caalami ah inkastoo aan si cad loo sheegin waxa laga hadlayo haddana qodobka ugu weyn ayaa la filayaa inuu noqdo dagaalka sokeeye Suudaan oo ah arinta ugu weyn ee geeska Afrika maanta ka taagan isla markaana khusaysa saddexda dal iyo sidoo kale dhibaatooyinka Soomaaliya ay ku hayso Ethiopia ah in ay Israa'iil u soo tubarraacayso hawadooda Turkiga oo dadaalo kala duwan ku bixiyay isku keenida dalal ishaya oo ku kala yaala gobolka kala duwan ayaa sanadihii u dambeeyay kordhiyay isku daygiisa uu ku xoojinayo doorkiisa dhexdhexaadnimada caalamiga ah inkastoo ugu eegtay in si tartiib loo aqbalayo Ankara waxay door weyn ka qaadatay dhexdhexaadinta Ethiopia iyo Soomaaliya Ukraine iyo Ruushka Taliban iyo Pakistan sidoo kale waxay door firfircoon ay ka qaadatay dhexdhexaadinta dalalka kale ee ishaya mas'uuliyiinta Turkiga iyo Falanqeeyaasha taageersan dawladda ayaa sheegaya in dadaalada Ankara ee dhexdhexaadinta ay ka caawinayaan inay isu muujiso dal wax dhisa oo si cad uga qayb qaata xasiloonida caalamka waxayna sidoo kale sheegeen inay tani kor u qaadi doonto sumcadda Turkiga ee masraxa caalamka maqaal uu madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan bishii November sanadkii hore ku daabacay wargeyska toddobaadlaha ee Mareykanka loo yaqaan Newsweek ayuu ku sheegay in dalkiisu uusan ka labayn doonin xalinta khilaafaadka wasaaradda amuraha dibadda ee waddankaasina waxay sheegtay in Turkigu uu doonayo inuu qaato hogaamin ku saabsan dhexdhexaadinta nabadda caalamka agaasimaha isgaarsiinta madaxtooyada ayaa sheegay in Turkigu uu yahay waddan muhiim ah isla markaana xalinta dhibaatooyinka iyo qalaasaha ka taagan caalamka uu muhiim kale u siiyay sidoo kalena wuxuu rajeynayaa in uu martigeliyo wada hadallo muhiim ah u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ee dhacay bishan balse ugu dambeyn wada hadallada waxaa lagu qabtay Cumaan waxaana loo arkayay mid kale oo ay dawladda Turkiga ay doonaysay inay halkaasi ku qabato sanadihii la soo dhaafayna Turkiga kaalin muuqata ayuu ka qaatay xalinta khilaafaadka ka jira dalalka dariska iyo guud ahaan gobolka xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia kadib heshiiska Addis Ababa iyo Hargeysa oo la filayay in lagu aqoonsado maamulka Soomaaliya ayaa lagu xaliyay dhexdhexaadinta Turkiga walow la sheegay in Ethiopian ku wali ay khiyaameynayaan Soomaalida heshiiskaas oo dhexdhexaadinaya madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa labada dal ku aqoonsadeen madaxbannaanida iyo qarannimada midba midka kale laakiinse waxaa laga soo ka dhacay in eray bixinta la hagaajiyo Soomaaliyana ay ka cadayso Ethiopianka inay ka noqdeen waxay faleen Turkiga sidoo kale wuxuu dhexdhexaadiyay wada hadaladii u dhaxeeyay Taliban iyo Talibanka Afghanistan iyo Pakistan oo lagu qabtay dalka Qatar kuwaas oo markii dambe ka sii socday Istanbul inkastoo heshiiska madamaysa aan la gaarin heshiiska xabad joojinta bishii September u dhaxeeyay maleeshiyaadka Raada ee Liibiya iyo dawladda midnimo qaran ayaa sidoo kale lagu sheegay inay Turkigu u fududeeyeen bishii December ee la soo dhaafayna markii dawladda militariga Suudaan ay ku eedeysay Imaaraadka Carabta inay hubsiyaan ciidamada gurmadka degdega ee jaanta fudud ee RSF ama Rapid Support Force ay Erdogan wuxuu dalbaday in uu dhexdhexaadiyo Khartoum iyo Abu Dhabi warbaahinta taageerta dawladda ayaa inta badan ku amaanta Erdogan inuu yahay hormuudka hogaaminta diblomaasiyad waxay sidoo kale sheegaan in Turkigu uu bedelay
uu isu bedelay xarun diblomaasiyadeed dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee Erdogan ayaa sida ay wargeysyada taageersan sheegeen ku tilmaamay in Turkigu uu ka dhigay dal hormuud ka ah masraxa caalamka halkii uu ka ahaan lahaa dal kale daba socda inkastoo doorka Turkiga ee sii kordhaya haddana waxaa jira dalal kale oo soo taraya si ay uga qayb qaataan howlaha dhexdhexaadinta Imaaraadka Carabta ayaa noqday meel lagu qabto dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu dhexdhexaadinayay Ruushka iyo Ukraine taasoo aad moodo in ay Turkiga meesha ka saareen maxaabiista la kala wareejinayay iyo carruurta yaryar ee la kala afduubtay ayaana xarun u noqotay isku tagga Imaaraadka Carabta Cumaan ayaa sidoo kale ka faa'iideystay xiriirka weyn ee Iran ay la leedahay si ay u martigeliso wadahadallada Mareykanka iyo Iran taasoo Turkiga meesha ka saartay iyaduna saxafiyiinta u dhashay dalka Turkiga Murad Yetkin ayaa sheegay in tartanka u dhaxeeya Turkiga iyo Israa'iil uu saameyn ku yeeshay dadaalada Ankara ee dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Iran inkastoo Turkigu la kulmay caqabado haddana wuxuu muujiyay in wali sii wadi doono dadaaladiisa ku aadan dhexdhexaadinta nabadaynta dhinaca ganacsiga markay noqoto Turkiga ayaan ammaan badan ku haysanin dhammaan wadamada ay la sameystaan cilaaqaadka warar ayaana sheegaya inay Turkiga ka badan tahay mar walba cishimaysigiisa marka ay noqoto inuu dadka wax la qaybsado dadka qaarkoodna waxay ku dhaleeleen Turkiga xoga quduucnimo ah iyo sidoo kale isisiin suuqa iyo inay cishimaystaan taasoo meesha ka saarta doodaha waaweyn ee ku aadan in wax la wada cuno ama wax la wada qaybsado waxay ka dhigan tahay iyadii marka ka dameysa in ay tahay arrin aan la sahla karaynin in Turkiga si fudud loogu wareejiyo hanti dad badan oo Soomaaliyeed ayaa la sheegay in aan waxba laga ogeysiin gaar ahaan khubarada dhinaca shidaalka u dhuun daloola marka ay noqoto ayaa leeyahay shirkadaha tripeerka ee dalka Turkiga ayadoo la sheegay in looba diiday ayaa leeyahay in xataa dadka khubarada ay Soomaalida ka soo dhawaadaan qodista iyo xogta ku aadan shidaal intelek ayaa Soomaaliya laga soo saaraya maxaa meesha ka soconaya waxyaalaha la yaab kale iyo kiisaska adduunka ka dhaca waxa weeye cadeymo cusub oo ku saabsan kiis nin 23 sanadood ku jiray jeel ama xabsi isla markaana dil lagu xukumay ayaa muujinaya in booliisku ay gabi ahaanba dhoodhoobeen markaasi falkaasi in uu isagu geystay sida lagu ogaaday baaritaan ay sameeyeen warbaahinta dalka Ingiriiska ee Panorama barnaamijka Panorama BBC ka baxa 13 qof oo kale oo maqraati ah ayaa hadda sheegaya in booliisku ay ku cadaadiyeen inay hadalkooda qurxiyaan ama ay ka been sheegaan maxkamadda taasoo noqotay fadeexad aad u weyn John Auction oo loo yaqaan Ok ayaa lagu dilay midi xilli ay u soo socotay gurigeeda iyada oo ka timid awees ku yaala Bloomington 2002 Bengut oo ah qof balwad leh oo taariikh u leh dambiyada daroogada iyo midiyeynta ayaa lagu helay maxkamadii saddexaad sanadkii 2005 kadib markii laba xeerbeegti oo hore ay ku guuldareysteen inay go'aan ka gaadhaan BBC-da barnaamijka Panorama ka baxa ayaa markii dambe falkan baaritaan ku sameeyay muddo 9 sano ah iyadoo horey u sheegtay in qaar ka mid ah maqraatiyaasha ay sheegeen inay bixiyeen cadeymo been abuur kadib markii ay cadaadis kala kulmeen booliiska laakiin baaritaankii ugu dambeeyay ee Panorama ayaa muujinaya sida diiwaanka telefoonada ayaa muujinaya in Bagut uu lahaa marmarsiyo taasoo meesha ka saartay cadeyntiisa maqraati ee ugu weyn taasoo booliisku ay qariyeen booliisku waxay kiiskiisa ku dhiseen maqraati beenaale la xaqiijiyay in kastoo ay ogaayeen in muuqaalka CCTV uu khilaafsan yahay sheekadeeda laba maqraati oo dheeri ah ayaa la sheegay inay been ka sheegeen maxkamadda kadib markii booliisku ay cadaadis ku saareen 4 qof oo kale ayaa BBC-da u sheegay in booliisku ay isku dayeen in ay keenaan cadeymo been abuur oo ay diideen cadeynta dhammaan maqraatiyaasha xeeraaliinta muhiimka ah ayaa hadda la duray ama la sumcad dilay maqraatigu wuxuu ahaa mid muhiim u ah dacwad oogista maadaama aysan jirin CCTV ama cadeymo dambi baaris oo Bankuti ku xulaya dambiga markaasi kadib markii dib loo eegay cadeymaha Panorama baaraha howlgabka ah ee kooxda dilka Britain ee Murphy waxa uu ku baaqay xafiiska madaxa bannaan ee anshaxa booliisku inuu baaritaan degdeg ah uu ku sameeyo sida booliiska Dorsey ay u maareeyeen kiiskan dhacdooyinka noocan oo kale way iska dhacaan isla markaana waxaa marar badan dhaca dad si markaasi gabadfalo loo xiro oo hadhowto gadaal lagu ogaado in haba yaraatee wax qalad aysan sameeynin kiisas badan oo noocan ayaa Mareykanka ka dhacay Mareykanka kiis aan garoobay oo nin ku dhawaad 40 sanadood xidhnaa ayaa dhawaan malaayiin dollar oo magdhaw la siiyay walow uu waayeelay oo uusan isticmaali karin madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa dib u saxay hadal uu ka sheegay suxuunta duusha inay jiraan isagoo leeyahay barnaamijka markaasi nin isagu duuba barnaamijyada ka duuba dadka bidixda u janjaro leeyahay Brian Tyler Cohen
ayaa waxa uu ka sheegay Obama in ay jiraan oo ay run tahay suxuunta duusha ama walxo cirka ka yimaada oo noolayaal ah taasoo dadku ay aaminsan yihiin laakiin isagu uusan arag way jiraan laakiin anigu maan arag ayuu yiri markii la weydiiyay in waxa loo yaqaan aliens ama aliens ay yihiin run iyo in kale waa run ayuu laakiinse anigu ma arag Obama ayaa hadeerta sheegay in gabi ahaanba uusan weligeedii allaheed uusan arintaasi arag waxaana muuqaalkaasi markii dambe uu noqday mid gabi ahaanba aad la soo wadaagay oo ay dad badan ku tilmaameen in uu sameynayo sheekooyinka mu'aamarada sidaa daraadeedna wax uusan cadeyn u sameeyay barnaamijyadan ayaa looga yaqaan dalka Mareykanka marka la joogo UFOs waxaana loo yaqaanaa in ay yihiin waxyaalo aan la garanaynin oo duulaya isagoo marka ka dameysa ay jiraan aragtiyo waaweyn oo ku aadan halka ay ka yimaadeen UFOs si kastaba ha noqotee madaxweynaha dalka Mareykanka hore ee Barack Obama ayaa wuxuu aaminsan yahay in weli ay jiraan arrimahaas laakiin aysan ku jirin aagga loo yaqaano B51 isagoo ama Zone 51 isagoo sheegaya in aysan sax dhab aysan ahayn marka laga hadlayo taasi dhinaca kale daawashana qiimaha badan waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida idil qodobo waaweyn ayaad maqli doontaane waxa iska cadaatay in wadamada reer galbeedku hadeerto ay fahansan yihiin ama ay ogaadeen taasoo u eg ayaa la yiri in ay isku diyaarinayaan dagaal aad u xooggan labada taliye ciidan ee wadamada Jarmalka iyo wadanka loo yaqaano Ingiriiska ayaa si degdega waxay u qoreen bayaan aad u weyn oo ay ku daabaceen laba wargeys oo labada luqadood ee afka Jarmalka iyo kan Ingiriiska wax ku kala qoraa si ay dadkooda ay ugu baaqaan inay maskaxdooda bedelaan isla markaana ay niyadooda u diyaariyaan inay run tahay khatarta weyn ee dhinaca dagaal ee ku soo socda tan ayaa muujinaysa in ay gabi ahaanba ahayd fariimo ay doonayaan inay saraakiisha ciidamada qalabka sida labadan dal ee Yurub ku tutudharoon dhaqaale ahaan iyo military ahaan ay rabaan inay dadkooda la wadaagaan macluumaad ay ugu yeedheen inay tahay qayladaan hogaamiyaasha militariga ee wadamadan sidoo kalena markaasi taliyayaasha ciidamada ayaa waxa ay yiraahdeen ama chiefafka dhinaca difaaca ee defense chiefs ee labada dal ee ugu waaweyn ayaa waxay sheegeen in ay wadamada reer Yurub muwaadiniintooda looga baahan yahay aqbalaan in dhaqaale aad xoogan loo dumo ama loo bedelo dhinaca difaaca iyo dhismaha ciidamada xilli ay sheegeen in adduunka oo dhan inuu isliqo inay diyaar loo yahay wargeyska The Guardian iyo ka soo baxa dalka Britain ee maalinlaha iyo wargeyska Die Welt ee wadanka Jarmalka ayaa labadaba lagu daabacay waxaana labada luqadoodba lagu nuxnuxsaday sida ay muhiimka u tahay in dawladda dalka Ruushka lagu qaado weerar lagaga hortagayo isballaarinta ku soo aadan westward oo loola jeedo inay u soo socdaan dhinaca galbeed Sir Marshal ninka loo yaqaan Marshal Sir Richard Knighton oo taliyaha ciidanka qalabka sida wadanka Britain iyo dhigiisa wadankaasi chiefka general ninka loo Castan Bruni oo sidoo kale labada sarkaal ee ugu sareeya labada dal ciidamada iyo wasaaradaha ayaa waxay leeyihiin waxa la joogaa waqti ay gabi ahaanba Moscow ay isku diyaarinayso dagaal daba dheeraada isla markaana gooran habeen ahayn maalin ahayn ay gabi ahaanba ay qaaradeena ay bartanka ku dhufato waxayna yiraahdeen dagaalkii qaboobay ee dunida waxa uu ahaa mid bikh ah ama waxba ahayn yani marka loo fiiriyo waxa soo jiijiray waxay ka digeen hadii isdhigashada reer galbeedku ay sii socoto in lagu habsa doono wuxuuna ka digay qoraalku inay isku diyaariyaan arrimo waaweyn dhinaca kalena wadanka Jarmalka ayaa ku dhawaaqay inuu Faransiiska u gacan haatiyay uuna ka doonayo dalka Faransiisku inay siiyaan gabaad dhinaca nuclear-ka markii ugu horeysay ay raadiyaan dalka Jarmalka nuclear way wasiirka madaxa guud ee wadankaasi iyo madaxweynaha u dhigama labada hogaamiye labadaas dal ayaa waxa ay sheegeen inay qabsanayaan markii ugu horeysay waxay ugu yeereen Germany France strategic nuclear deterrence cooperation ama in iska caabinta hubka nuclear-ka isku darsadaan dawladda Jarmalku ma laha wax hub nuclear laakiin Faransiiska ayaa haysta qabeel sida daraadeed waxay leeyihiin waxay noqon doontaa mid ay dalka Jarmalku ay ka caawiyaan Faransiiska taas Faransiiska waxa laga caawin doonaa dhaqaalihiisa si xumaanaya iyadoo ay meesha ay u muuqato in la isku danaysanayo xil ay qadiyadaha ay sii adkaanayaan tan ayaa ka dhigan in markii ugu horeysay Jarmalku uu raadiyo quwadda nuclear-ka ay tahay lama garanayo in Jarmalku quwadda nuclear-ka uu raadinayo la mid tahay tan Sacuudiga iyo Pakistan oo ah in lagu ilaaliyo iyo in ay tahay in ay la siiyo nuclear transfer dawladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa barihi ugu dambeeyay oo dhan dunida oo dhan u sameysay urur wadamada aan hubka nuclear-ka haysan ee ka baqaya kuwa nuclear-ka haysta ay dariska yihiin si ay uga helaan gabaad dhinaca kalena wadamada reer Yurub ayaa qorsheynaya joojinta carruurtooda ka yar dhowr iyo 10 in laga mamnuuco isticmaalka baraha bulshada xilli la ogaaday in baraha bulshadu ay sii fool xumaanayaan ee ay ayaa soo baxay dad furuuq ay sameeyeen kuwaas oo faaxishooyinkii ugu badnaa faafinaya ra'iisul wasaaraha wadanka Britain Keir Starmer ayaa ku dhaartay in uu gabi ahaanba shirkadaha waaweyn oo dhan uu ka jari doono wuxuu ugu yeeray addictive nature ama dhaqankan markaasi ku dhadhabida ama in ay waxa
lagu markaasi dhigo wax dhinaca kalena Jarmalka ayaa sheegay in ay ama iyaguna taasoo kale ay qaadi doonaan ururka The Social Democrats ee dalkaasi wax ka maamulo ayaa sheegay inay barnaamijka hordhigay ama dowladda wadaagga ku jira arrimahan ayaa u eg xilli ay wadamada caalam islaami weli aysan ka dhiidhiin dhibaatooyinka dhinaca baraha bulshadu ay leeyihiin inkastoo wadamada caalam islaami doodoodu ay tahay inay marmar ka dambaysa ay leeyihiin waxa aan ku haleenana arrimahan waxaan ku haleenana ayay leeyihiin waalidiinta haddana ma aha wax waalid control karo sidaa daraadeedna waa arrimo waaweyn oo u baahan in la sameeyo. Hillary Clinton xogii hore arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa ku eedeysay maamulka madaxweyne Donald Trump inuu isku bedelay maamulka qarinta ayay yiraahdeen markaasi gabdhaha yaryar ee dhibaatada aadka u xooggan loogu geystay wasaaradda ka dhigtay Hillary Clinton oo la sheegay in odaygeedu uu tagay Ireland inta soo jeer ayaa haddana diiday in gab ahaanba odaygeeda isku barbar taagto waxa ugu yadhahdo khalad sameeyay inkastoo la sheegay in uusan Bill Clinton marnaba uusan gobadh yar la jiifsan oo asaga naaga waaweyn halka uu la tagi jiray arrimo kale oo ka saxuna la sheegayo in ku tigaali karin haddana waxay ka digtay Hillary Clinton in ay tahay in maamulku uusan waxba qarin yaa waxba la qarin ayay tiri waxayna sheegtay in maamulkan gab ahaanba uu yahay maamul asagu ugu talagalay inuu arrintan qariyo waxay aaminsan tahay xataa haddii odaygeeda aan waxba loo reebeynin in wixii halkaa ka dhacay banaanka la soo dhigo dhinaca kalena congressmanka laga soo doorto ama xildhibaanka laga soo doorto gobolka Kentucky oo ah ninka kaliya jamhuuriga ee ku haray dagaalka ka dhanka markaasi in la qariyo sirti Jeffrey Epstein ayaa ku tilmaamay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu isku bedelay maamulkii hantidii iyo dhaxalkii Jeffrey Epstein macnaha wuxuu leeyahay ninka maamulkaas waa maamul Epstein macnaha baa ka tagay waa waxyaalaha uu ka tagay bay ku leeyahay oo asaga legacy-giisa weeye sida daraadeed laga sugmaayo faa'iido wali waxa sii socda difaaca ay difaaciyaan boqolaal qof oo UN-ka u shaqeeya hay'ado madax banaan aflaanta wariyaal caana gabadha loo yaqaano markaasi loo yaqaan Francesca Albanese ee reer Talyaani taasoo ayada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqsanka Falastiin kadib markii uu hadalkii ka sheegtay TV-ga Al Jazeera forumkiisa lagu qabanayay magaalada Doha xarunta dalka Qatar ee uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay tiri cadawga guud ee leeyihiin waa Israa'iil hadalkaas oo ee wadamada Talyaaniga iyo dalal badan ay ku tilmaameen in ay tahay wax aad iyo aad u foolxun oo aad iyo aad hogaamiyaha mar la aragahay ee dalkaasi loo yaqaan Bangladesh ayaa ugu dambeyn sheegay inuu retire isla markaana uu talada ka fadhiistay 85 jirkii dhaqaalayahanka bankarka ahaa dadkana markii horeysay dhaqaalaha sii jiray ayaa ugu dambeyntii waxa uu talada wadanka u gaarsiiyay doorasho uusan isagu tartamin xisbi samaysan waxbana uusan ku lug lahayn wuxuuna ka tagay legacy-gii ugu weynaa asagoo haysta bilada nabadda ee Nobel Peace Prize Mohamed Yunus ayaa waxa uu ku dhawaaqay aslaadiisa shalay laakiin se durbaabo waxa laga sameeyay boqolaal qoraal dunida ayaana si aad xoogay ugu amaantay in muddo 2 sanadood uu dalkiisa wax ka yar uu kaga soo saaray dhibaato aad xoogan oo dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed una gaarsiiyay doorasho xor iyo xalaal isagoo taariikh Ramadaan uu Raxmaan uu ku wareejiyay talada wadankaasi Mohamed Yunus ayaa horay waxa uu u haystay banki kamid ah bangiyada ugu waaweyn wadanka wuxuuna aasaasay markaasi wax loo yaqaano bankigii ugu weynaa ee sameey jiray ayaa la yiri ama sameey jiray deynsiinta dadka danyarta gaar ahaan waalidiinta iyo markaasi dadka dhibaatooyinka ay gaaraan bankiisa Grameen Bank 1983 ayuu si weyn u soo caan baxay laakiin isaga ayaa bilaabay dhaqaalihiisa 1976 isla markaana intii lagu gudbay 70-aadkii wuxuu gabi ahaanba lacag yar oo $27 oo Maxamed uu sii jiray haweenka laga dhintay kuwa la furay iyo kuwa odayaashu ay ka xanuunsanayaan iyo sidoo kale oday islaantii ka tagtay oo carruurtii kaga baxsatay ama mid ay ka dhimatay oo carruur rajay haysta isla markaana dadkaas ayuu dhaqaalay jiray markii dambana bankiisa ayaa isku bedelay kuwan ugu waaweyn sanadkii 2006 ayaa loo aqoonsaday dhaqaaleeye iyo bedele nolosha ah kumanaan boqol oo qof ayaana la aaminsan yahay inuu noloshooda wax ka bedelay halka uu markii dambana bixiyay boqolaal waxbarasho markii dambe ee wadankiisa dhibaatadu ay ka dhacday sanadkii 2024 kadib markii haweeneydii ay dhiig ku fool dhaqatayna wuxuu go'aansaday inuu dalka uu hogaamiyo si ku meel gaar kadib markii dadka mudaharaadayaasha asaga ay u xusheen kolkaana wuxuu gaarsiiyay doorasho wuxuuna diiday inuu isagu sharaxo maadaama uu xukuumad ku meel gaar ah daadinayay boqol kamid ah ciidamada qalabka sida dalka Mareykanka ayaa gaaray Nigeria halkaas oo ay sheegeen inay kula dagaalami doonaan dadka dhibaateynaya Kristaanka
sidaasna waxaa ogolaatay dowladda Nigeria ayaa soo dhaweysay cutubyo kamid ah ciidanka qalabkiisa dalka Mareykanka oo madaxweyne Donald Trump uu ku amray inay caawiyaan dowladda Nigeria hadii ay ka dhabtahay ayuu yiri inay la dagaalamaan kooxaha argagixisada ah dowladda Nigeria ayaa dhowr jeer diiday in haba yaratay aysan jirin wax si gaar ah oo bartilmaameed iyaga ka dhana iyagu ay qayb ka yihiin dowladdu qayb ka tahay oo lagu bartilmaameedsanayo ay yiraahdeen kooxaha dadka markaasi Kirishtaanka si kastaba ha noqotee wararka ayaa xaqiijinaya in dowladda Mareykanku arrintan ay uga leedahay faafinta afkaarta soo nooleynta in Kirishtaanka kor loo qaado lagana hortago dhibaataynteeda qaar kamid ah xildhibaanadii hore ee dalka Mareykanka oo ka faa'iideysanaya sheekooyinkan in Kirishtaanka loo heliya ayaa bayaan ay soo saareen waxay sheegeen in muslimiin in Kirishtaanka ku nool Bethlehem ay Israa'iil dhibaato iyo gumaad ku hayso sadaradeeda Trump laga sugayo ayagana inuu badbaadiyo waaxdii arrimaha amniga qaranka dalka Mareykanka ee loo yaqaano DHS ama Department of Homeland Security ayaa la sheegay in ay weli dhaqaale la'aan tahay ayadoo la sheegayo in ilaa iyo hadeerta aysan wax dhaqaala gacanta aysan ku haynin kadib markii Congress-ka Mareykanku ay diideen inay lacag siiyaan tan iyo inta laga saxayo khaladaadka waaweyn ee geysatay intii lagu guda jiray ololihii dhinaca immigrationka loo yaqaan immigration and custom enforcement ICE lagu dilay labada qof magaalada Minneapolis wararka ayaa xaqiijinaya in xisbiga jamhuuriga ee dalka dimuqraadiga dalka Mareykanka uu diiday in wax lacag ah uu siiyo tan iyo inta laga saxayo isla markaana laga adkeenayo qaabka ay u isticmaalaan awoodda xad dhaafka ah ee